السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا كحرا channel كيم مرة ما أنت وحن هالكن عن نيجوسو بندقيا قرشها دولة الدحى دولة الفدرال كيتوبيا أي كوضتو دولة ديجان كصوماليات جارهان قلبيت كسيتي قرشياشا أي دولة الدحى أي كوضتو هاي كدقان تاي وصدح قضب هي دولة الدحى كوضتها إن أي قلبيتك كحريستو dhulka Soomaaliyeed ee baaxad weyn leh sidii ay uga qaadan lahayd Soomaali ay u soo dhaxmari lahayd canfar caadile waxa ma nasiib darro ah in inagoo Soomaali ah oo dawlad deegaanada federaalka Itoobiya ka tirsan uguna tunka weyn kuwa lagu tuhmo aan ka mid nahay sababta keentay in awoodeeni iyo dadnimadeeni la weeqiyo waa ayaan daro isku xirnaansho la'aan noo sababtay inaan tafaraaruqno inaan kala jabno in dadkeena la ugaarsado in xoolo dhaqateeni la gumaado sababta keentay waa isku xidhnaansho la'aan bulsho marka leeyahay haday bulshadu isku xidhan tahay waxba laga qaado haday bulshadu isku duuban tahay waxba laga qaado laakiin hadii bulsho qaarna dhinac looga rayaaqayo qaarka kalena dhinac kale looga rayaaqayo waxay keentaa tafaraaruq bulsho iyo taariikh xumo taaba keentay inay canfaray maanta dhulkeenii ay ku dhiirato ay damacdo inay xoolo dhaqatadii ay gumaado ay qodob kale ay soo dhigto shuruudo aanan ku jirin heshiiskii hore loo gaaray kaasoo qeexayay in la wada dego balse laakiin anaga ahaan Soomaali ahaan aanan noo cuntameyn qodobka noo cuntameyn waa qodobkaas dadkii cadaytu shalay markuu dagaalku dhacay la barakiciyay ee la shaqoolay ee guryahoodii la gubay in maanta la yiraahdo lama dajin karo oo kuma soo laami karaan hoygoogii ay deganayeen waa nasiib darro taasi waa nasiib darro waana dhibaato waana laga bixi balse laakiin maxaa inaga Soomaali ahaan inoo qorshe ah maxaa inoo qorsheysan maxaa inaga dhama markaan xaaladda guud iyo cimilada guud ee maanta taagan sideen ku xallin karnaa waa hal meesha waxaan ku xallin karnaa bulshada oo isku duubanta bulshada oo isku xiranta oo koow dawlad deegaanka oo gacan siya xoolo dhaqatada siyaasiyiinta deegaankeena haday maxaafad iyo macaarad ba ay tahay ay iyagna ay arrinkani ka hadlaan ay garab istaagaan walaalahooda dhiban xukuumadahan qodob kale ee horyaala ah afka baa laga taageeraa looma baahno laba cisho saddex cisho baa bulshada la tusaa dowlatus looma baahno waa in ay ciidanka ay geeyaan furmaha dagaalka shalay dagaal baa dhacay dagaalkii shalay dhacay xalay uu gobolku ugu dhacay labada dhinacba gobolkaas ugu dhacay inta badan sida wararka xoogagal ay la soo gaarayaan oo dad goobjoogayaal ay la soo gaarsiinayaan xogta dhabarjabin dambe ayaa lagu sameeyay Ciise dhabarjabin dambe ayaa lagu sameeyay Ciise dagaalamaya ee dhulkooda ridanaya dhabarjabinta dhowr jiho ayay isku qaybiyeen dhowrkii jiho ay isku qaybiyeen dagaalyahanadeenan dhulka noo xoreynaya waxaa dhacday in meel aan laga filayn ay canfar ciidan geliso ciidanka ay canfar gelisay halka ay gelisay ayaa dhacday in la dhabarjabiyo
balse laakiin wax ka dhintay ciisahana ma jiro laakiin canfarna jab weyn baa gaadhay oday canfar oo la qabtayna uu jiraa oo waayeel ah oo dagaalamayay oo dagaalkii lagu qabtay ma soconayo halkan igu dilo wili sidii baa isagana usha loo qaatay la yar shaabugeeyay jac laga saaray marka taasiba waa guul inoo soo hoytay waxaan odhan lahaa bulsho ahaan walaalahayow intiina daawanaysaay in tolkeen loo gurmado waa wax waajiba in tolkeen loo hadlo waa wax waajiba cid u maqan ma jirto qarnigan aan taagannahay inaan taariikh ka tagnaa fiican ku miidiyaga ka hadla ku jeebkiisa ka hadla ku xooggiisa ka hadla ku aqligiisa la kaashada ayaa loo baahan yahay inaan u hurno u tudno tolkeen intiina daawanaysaay waxaan inigu boorinayaa inaad tolkeen wax u qabatiin tolkeen aad garab joogtiin tolkeen aad u hiilisaan ayaa iniga baahan yahay inteena miidiyaga ku xilan inaan miidiyaga ka shidno oon ka afuufno ayaa loo baahan yahay in miidiyaga aan dhanka kale ugu rogno ayaa loo baahan yahay inta miidiya ee canfar ay ka hadashay waa dad af Soomaaliga bartay oo Soomaali la dhaqnaa ayaa inta badan u hadla ninka Axmed Bashiir la yiraahdo waa nin jaarsa waa nin Soomaali galbeedii qaxootigii dakhil ka baxay ciisana sidoo afuufo waa la arkaa taasi ma aqli baa inta Yurub joogta inta Canada joogta inay ninka talaabo ka qaadaan weeyaan in ninka sida loogu deeyin weeyaan waa tuug waa munaafiq canfar ay lacag u qortay af Soomaaligana yaqaan inaad ninkaas intiina daawanaysaay kuwa Canada jooga haday jiraan kuwa Yurub jooga haday jiraan in loo jawaabo iyaga habboon in jawaabtiisu mudan la siiyaa fiican marka waxaan maanta barnaamijkan aan inagu soo koobaya tolkeen gurmad buu inooga baahan yahay ala kulli xaal gurmad ayuu inooga baahan yahay tolkeen waa inaan lagu gurmano waa inaan jeebkeena wax ka bixino loo baahan yahay markaas waxaan maanta barnaamijkan aan inagu soo koobaya sida iyo amaana Allah waan mahadsantiin intiina daawanaysa ee igu xiran YouTube-kayga maqaaxidana ila shida daawashadana badiya share-ta ku badiya subscribe-ta ku garaaca like-tana way dhiiri gelisaa iyana idinlahay asxaabtayda waan mahadsantiin intiina igu xiran waxaan iga tagay sida iyo amaana Allah tolkeen hallo gurmada leeyano السلام عليكم